waxaan ahay magacayga Deeq Axmed baa lahaa waxaan ahay marxuumka meeshaas yaala maamadii islaantu uu qabay xaaskiisii baan ahay carruurtiisii waa kuwaana sargaal booliska buu ahaa oo gaashaan la dhaxa ah meeshaan baan deganay deegaan ku ahayn waxaana la ku yorgeliyay shalay in la yiri dhulku waa la duminayaa maxaad uga bixi weysay wuxuu yiri taliyaan uu meelan aaday meelan aan garanayo ma jirto haddaadan bixin wuxuu yiri waan ka duminayaa dumiyuri tan shaqada kuma qabsanaaye waa la wacay xafiiska waxa laga wacay guud xafiiskii buu tagay waxa lagu yiri soo xukayn baa loo soo dirayaayo guddi baa loo saarinayaayo oo guriga ku laabo xalay 3 saac baan kala seexanay koortii aan seexanay 5 saac ma ka seexanay anaga koortii aan seexanayna saakadan soo baxna 2 saac bar la marayo meedkiisa waxa dhexdiisa lagu arkay ciidanku baan tusay meesha jooga waana la dilay qof isagu waalan ama wax cudur qabay midna ma uu aha qaarkoodna waxay magaalada galiyeen ninkan waa laayay mooto ay jugsiisay mooto jugsiisay way jirtaa laakiin ma waaleen wax cudurna ma uusan qabin nin reeriisa dhaqanayo shaqadiisa aadayo dantiisa yaqaan uu ahaa hadda intaasaan social media madaxdu u sheegayna madaxdu way ogtahay wax sidela ma jiraan waa lagu daba joogaa waa la soo wacay waa loo sheegay culayska jirana de ilaahay baa garan kara inta uu leeyahay marka wax sidelaada lama jiraan waa in la dilo si uu la kaca loo dilay wixii dilana waa lagu daba jiraa waa la raadinayaa isaga xalay 3 saac baa telefoon loo soo diray waxa lagu yiri waa lagu dacweynaa isagana waa la dacweynaya waa la xirayaa gurigana waa laga duminaya ilmahan waa lagu leynayaa waa la yaqaanaa يا صوّع هذين من مدحضة وحرة كترسم بصوّع markii hore yaa yiri gurigan ka guura yaasi tahay cid ma la macaamilaysi taliye sulba ku yiri waa laga bixinaya waa loo baahan in saacad aragtay meedkiisa saaka 2 saac barbaan aragnay xirada dhexdeeda ku aragnay arkiisan xaal noocay ku sugnaa qof isdilo maya uu labisnaa geedka sartiisa oo labisnaa diriiskiisa qaranka labisan ayaa geedka meesha dhakada usaga u sareysa soo ku xirxiran baan ciidankuna tusino dheena abiino meed halkaas yaalana la ku wargeliyay xarigu ku xirna marka xarig oo anu waa dareemi kartaa maama la yiri ninkaadii baa dhintay iyo ilmo aabahooda dhintay la yiri waa dareemi kartaan qalbigooda iyo waxyaabaha gaari kara anagu qalbiga ma aan helin fursad ma aan helin waan shoogna waan iska soo cararnay ciidanka baa kala ordayo meesha ka furayo si ka bacdina si dhida imaatay sawirada laga qaaday ayaga ka furan xarkihii ayaga meesha dhigeen meedkii wali meeshii uu yaalaa kolay madaxda waa imaatay taliyada booliska waa imaaday wixii ay ku dambeey doonto wixii ka qabanayaan sharcigu ka qabanayaan ayaga garanaayo taliyaha booliska mid la kulmay muxuu haa waan la kulmay oo yimid wuxuu yiri ilmahan anaga qaadanayna meedkana anaga duuganayna wixii dhacana waa laga daba tagay hadii la yiraahdo ma waxaan uga warantaa intii dilka uu dhacay ka hor wax cadaadis soo gaaray idinka saarna ma jiro ma anaga intaan guriga ka ahayn ma jirin cadaadis ka saaran wuxuu guriga la duminayo iyo guriga la yiraahdo la dumiyo lagu wargeliyay inuu baneeyo waan banaynayaa wiilano meelan aaday meelan ka aaday midna ma aqaano sargaal baaga mudabaan ahay laakiin waan baxayaa fursad hal ay siiyo fursadii macnaha in la siiyo la rabay ama inuu madax u tago oo dacwado la rabay taliya u laabtana falkana ku soo xigo meedkiisa waxda ku dhaxar thank you